waxaa lagu tilmaamaa inay tahay jidka isku xira nolosha dhalinyarnimo ee aan mas'uuliyadda iyo la xisaabtanka gaarka ah lahayn iyo nolosha dhabta ah ee mas'uuliyadda iyo isku tiirsanaanta leh. waa albaabka uu qof walba oo dhalinyaro ah u maro mustaqbalkiisa, badanaana go'aamisa meesha uu dhigayo jaantiisa ugu dambaysa ka hor intaanu u gudbin marxaladda waayeelnimo. waa marxaladda ay dhalinyaradu u kala jabaan 3 qaybood: qayb ku guulaysata maaraynta noloshooda, aan ku xirnaan waxbarashada jaamacadeed oo keliya, balse shaqaysta, wax isbara, xooggana saara kobcinta naftooda, mar walbana u hanqaltaaga gaaridda fiinta sare ee sallaanka guusha, iyo kuwa ku kadsooma magaca iyo maamuuska uu xambaarsan yahay jaamici, kuna kooban naftooda bugaagta jaamacadeed, waqtina aan gelin raadinta aqoon ka baxsan derbiyada fasalka ay wax ku dhiganayaan, hadhowna la shirtaga shahaado jaamacadeed oo keliya, dhibna ay ku noqoto helidda shaqadii ay ku taamayeen markii ay wax baranayeen, iyo kuwo bilowgaba ka dhaca sallaanka nolosha lana dheeraato sannadaha kooban ee waxbarashadu, waqtigooda iyo cimrigooda qiimaha lehna ku lumiya balwad iyo dhaqamo ay ka shallaayaan kol dambe. haddaba daawade, bilowga jaamacadeed ee sanad dugsiyeedkan ka hor sidee u maarayn karnaa nolosheenna ardaynimo xilliga jaamacadda, una noqon karnaa kuwo maalgashta waqtiga 5 sano ama 4 sano ah ee jaamacadda? magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. waxay ka mid tahay marxaladda jaamacadeed, gaar ahaan doorashada fakaltiga ama kuliyadaada waxbarasho, go'aamada ugu adag ee uu qaadanayo ardaygu noloshiisa. haddii aad shalay 4 sanaba marxalad waxbarasho aad bilaabi jirtay, maadooyinka iyo waxa aad baranaysayna aanay ku kala soocnayn, waxa keliya ee aad ka fakari jirtayna ay ahayd sidee natiijo fiican u keensataa. maanta daawade, waxaad gelaysaa marxalad ka duwan marxaladahaasi. waxaad gashay marxalad go'aanka aad maanta qaadatid uu noqonayo go'aanka aad ku maaranaysid noloshaada inta ka harsan. haddaba tallaabadaada ugu horraysa ka dhig inaad u jihaysatid meesha ay jeceshahay naftaadu. sii naftaada waqti ay ku fakarto. waxay noqon kartaa maalmo ama bilo ama xitaa sannad, laakiin ogsoonow inuu yahay waqtigaasi maalgashiga ugu muhiimsan ee aad siin kartid naftaada. wuxuu noqonayaa waqti aad ku qeexaysid naftaada, ogaanaysid shakhsiyaddaada, sidoo kalena aad isweydiinaysid waxa ay yihiin hibooyinkaagu si aad ugu jaangoysid noloshaada waxbarasho. waa laga yaabaa inaad haddeerba si fiican u taqaanid naftaada, laakiin waxaad fursad u helaysaa kala saaridda shakhsiyaddaada dhabta ah iyo shakhsiyadda aad yeelatay si aad u qancisid waalidkaaga ama bulshada aad ku dhex nooshahay. marnaba ha dooran kuliyaddaada waxbarasho adigoo tix raacaya waxa ay doortaan asxaabtaadu ama kuliyadaha bulshada agteeda qiimaha ka leh sida injineer iyo dhakhtar. sidoo kalena ha ku jaangoyn waxbarashadaada jaamacadeed kuliyadda uu waalidkaagu kula jecel yahay. ogow in noloshan aad adigu leedahay ilaahay ka sokow, keligaana aad garan kartid waxa ay jeceshahay iyo waxa aanay jeclayn. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, sidee ku dooran karaa takhasuska aan baranayo? dooro shayga marka aad qabanaysid aad dareentid farxad saa'id ah, waqtigu uu marayo adigoon dareemayn, shayga ku kicinaya aroortii adigoo dareemaya xiise iyo awood dheeri ah, shayga aad u kacaysid aroortii adigoon saacad iyo qof toona ku kicin. dooro shayga aad qabashadiisa ku sheeganeed xilligaagii iskoolka, waxa ay kugu ammaani jireen samayntiisa asxaabtaada iyo macallimiintaadu. qaybteen waxaan ku sheeganayn xilligii iskoolka aftahanimo ka yaabin jirtay qof walboo dhegaysta, qaybteenna howlkarnimo iyo hoggaan aan wax loo dhigaa jirin, halka qaybteenna ay ku suntanaayeen fahankooda xaddaafka ah ee fiisigiska iyo xisaabta. ku salay doorashadaada hibadii aad lahayd xilligaasi. waa hubaal inaad noqon doontid mid ku faana horumarka uu ka gaaro waxbarashadiisa, maxaa yeelay waxaad baranaysaa waxaad jeceshahay. khaladka ugu weyn ee ay dhalinyaradu galaan xilliga jaamacadeed ayaa ah inay ku koobaan noloshooda xayndaabka hal fakalti ama takhasus. waxay daalacdaan, akhriyaan, sidoo kalena baaritaanna ku sameeyaan keliya takhasuska ay baranayaan xilligaasi, waxayna ilaawaan ahmiyadda ay leedahay inaad xirfad isbartid xilligan. waxaa dhici karta marmarka qaar adigoo aaminsan in kuliyadda aad dooratay ay tahay tii aad ku taamaysay, aadna hubtay inaad meel fiican ka gaari doontid, aad ku baraarugtid inuusan ahayn fakaltiga aad dooratay kii kugu habboonaa, iyadoona ay dhici karto xilligaasi inaad joogtid meelaan ka noqod lahayn. tusaale ahaan, Daariq al-Suweydaan wuxuu ka mid yahay dhiirigeliyayaasha iyo haldoorka ugu caansan Carab.
waa qoraa iyo khudbad jeediye, sidoo kalena channel ku leh YouTube-ka. waxbarashadiisii jaamacadeed wuxuu ka gaaray PhD oo uu ka qaatay culumta batroolka. haddana mar uu ka sheekeynayay taariikhdiisa wuxuu sheegay inaanu weli shahaadadiisii jaamacadeed shilin ku qaadan, noloshiisa oo dhanna aysan shaqo ku lahayn maadadii uu shalay soo bartay. sidaasi awgeed daawade, xirfadaha aad baratid maanta inta aad jaamacadda ku jirtid waxay beri kuu diidaysaa inaad shaqo la'aan noqotid haddii aad shahaadadaada shaqo ku weydid, ama waxay kuu furaysaa albaabo badan oo aanay shahaadadaada keliya kuu furteen. marka aad dhamaysid jaamacadda, shahaadada aad qaadanaysid waxay caddaynaysaa keliya inaad sannadaha ku xusan aad ahayd arday jaamacadda wax ka baran jiray, laakiin ma noqonayso shahaadada keliya mid albaab walba kuu furta. inaad heshidna macnaheedu ma ahan inaad fariisan doontid xafiis qalabaysan, shaashadda gadaasheedana aad ka maamulaysid shaqadaada. laakiin haddii aan eegno bulshadeenna, cidda ugu badan ee shaqo la'aanta ah maanta waa dhallinyaradii jaamiciyiinta ahaa, halka dhallinyaradii aan fursadda u helin waxbarashada ama kuwii shalay ka haray jaamacadaha ay yihiin kuwo badankoodu shaqeeya. sababta haddii aad u fiirsatid, da'yarka jaamiciga ah wuxuu ku taamayaa inuu noloshiisa shaqo ka bilaabo xafiis ama goob maamuus leh, halka da'yarka kale ee aan nasiibka u yeelan shahaadadaasina uusan kala doorbidayn shaqooyinka tii uu arkana uu ka xamaalanayo. haddaba daawade, si aad u kobcisid fursadahaaga shaqo jaamacadda kadib, inta aad ku jirtid waxbarashadaada jaamacadeed shaqay. hana sugin shaqadaada inaad lacag ku heshid. ugu shaqay shirkadaha ka shaqeeya waxa aad baranaysid qaab voluntary ah ama lacag la'aan ah. ka shaqay xarun dowladeed ama ururada isxilqaanka ah ee dhallinyarada. waxaad kasbanaysaa khibrad, waxaadna waqti hore oo noloshaada ahba aad ku tababaranaysaa nolosha shaqo. sidoo kalena waxaad xiriir dhow la yeelanaysaa dhallinyaro badan oo howlkar ah oo aadan barateen, iyo sidoo kale ganacsato aad beri shaqo u doonan kartid marka aad jaamacadda dhammaysatid. waxaa la dhahaa shaqaalanimadu waa addoonsiga qarnigan. waxaad waayaysaa xorriyaddaada, waxaad dhimanaya hal abuurkaaga, oo maalin walba waxaad u soo kallahaysaa shaqo aad hal qaab iyo hal weji u qabanaysid, waxna aadan ku soo kordhin karin. sidoo kalena waxaa lagu tilmaamaa qofka shaqaalaha ah qof aan weligii hanti yeelan, bil walbana dhammaadkeeda la siiyo mushaar aan u qalmin dadaalka uu muujinayo, iyo sidoo kale baahiyihiisa qof ahaaneed, iska daa inuu helo lacag u kaydsadee. sidaasii awgeed daawade, maanta waxaad haysataa fursadaad ku bilaabin kartid ganacsigaaga ku gaarka ah, iskana ilaalin kartid dabinka ay ku dhaceen dhallinyaro badan oo kaa horaysay. la imow fikrad ama wax ka beddel mid horey u jirtay, waxna ku soo kordhi. samayso magacaaga ganacsi ee ku gaarka ah. 5 sano oo aad jaamacadda ku jirtid, sannad walba kobci ganacsigaaga. waxaa hubaala inaad ka bixi doontid jaamacadda adigoo ah milkiilaha shirkad dhallinyaro badan shaqaalaysiisa, halka asaaga ay kula qalin jabin doonaan iyagoo CV-gooda shaqaalanimo diyaarsanaya. waxaan joognaa casri uu noqday adduunku hal tuulo, sahalna ay noqotay in qofku uu boqolo dal isagoon safrin. internetkuna uu noqday mid kulmiyey bilaayin qof oo ku kala sugan daafaha adduunka. horumarkaasi baaxadda weyn wuxuu ka dhigay casrigan mid ay daruuri noqoto in qofku uu barto luqad ama labo aan ahayn luqadiisa hooyo. hore ay naadir noqotay in shirkadaha iyo goobaha ganacsi aysan shaqaalaysiin qof aan luqad labaad aqoon. sidoo kalena qof walba qofku ka luqada badan yahay wuxuu noqday mid ka fursado fiican. haddaba daawade, ka dhigo barashada ugu yaraan luqad cusub mid ka mid a qorshayaashaada ugu muhiimsan shahaadadaada qalinjabinta. waa hubaal inay noqonayso furahaaga mustaqbalka. ugu dambayn daawadayaal, marxaladda jaamacadda waxaa lagu tiriyaa marxaladda ugu adag marxaladaheena nolosha, maxaa yeelay go'aamadaada maanta waxay jaangoynayaan noloshaada beri. mar walbo aad qaab fikir iyo qorshe uu ku dheehan yahay aad u maaraysid noloshaadana, waa mar walbo aad horumar ka gaartid mustaqbalkaaga. aan xoogga saarno dhisidda mustaqbalkeenna si aan u gaarno nolosha aan ku taamayno beri. ogsoonowna daawade in cibaadada eebbe ay tahay furaha wax walba ugu muhiimsan. guushu ha ahaato mar walba garabkiinna.